bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qodob xasaasi ah oo aan ku falanqayn doono diyaarado sida ciidamada haramcad oo goordhow ka degay garoonka ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxay tahay ujeedada ciidamadaasi xilligan loo geeyay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa goordhow garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ka degay laba diyaaradood oo siday ciidanka booliiska ee sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano haramcad ila xog ogaal ah ayaa inoo xaqiijiyey in ciidankaasi ka soo degay tiro ahaan ay gaarayaan 100 askari kuwaasi oo aad u hubaysan labada diyaaradood ee haatan ka degtay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ayaa midiiba siday 50 askari welina waxay ku sugan yihiin gudaha garoonka ugaas khaliif lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa imaanshaha ciidankan iyo ujeedkooda warar hoose oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in ciidanka haramcad ee ujeedkoodu yahay sugitaanka ammaanka doorashooyinka ka dhici doona maalmaha soo socda deegaanka ceel jaalle ee duuleedka magaalada beledweyne dhinaca kale imaashaha ciidankan ee beledweyne ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ahayd uu gaaray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo horey looga diiday inuu yimaado magaalada beledweyne lamana oga ciidankan ujeedkooda inuu yahay gogolxaarka imaanshaha cali guudlaawe ee beledweyne waxaa sidoo kale xusid mudan in ciidamo aad u hubaysan oo ka soo horjeeda nidaamka hirshabeelle ay ku sugan yihiin meel u jirta 5 kilomitir garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne lamana oga in ciidankan haramcad loo adeegsan doono weerarka ciidankaasi diidan jiritaanka hirshabeelle iyo in kale shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa saaka aad u hadalhayo ciidamadan soo gaaray magaalada beledweyne xilli duuleedka magaalada beledweyne ay degan yihiin ciidamo hubaysan oo diidan jiritaanka hirshabeelle waxaana laga cabsi qabaa dagaalo dhex mara ciidamadan haramcad ee soo gaaray garoonka diyaaradaha ugaas khaliif iyo ciidanka hubaysan ee diidan jiritaanka hirshabeelle ee uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo jenaraal abuukar xaaji warsame xuud kaasoo si aad ah u diidan jiritaanka iyo habdhismeedkii labaad ee hirshabeelle haddaba daawade wixii ku soo kordho wararkan dib ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa